kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya oo amray in degdeg looga soo saaro ciidankii la geeyay Beledweyne wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa guddiga xalinta khilaafaadka oo hakiyay natiijada 3 kursi oo golaha shacabka dowladda Soomaaliya oo Rwanda kala hadashay arrin muhiim ah sidoo kale qodobada warkaan idinku hayna waxaa ka mid ah cabsi xoogan oo laga muujinayo inaan lagu soo gabagabeyn karin xilligan doorashada golaha shacabka muddadii loo qabtay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay golaha wasiirada Soomaaliya waxa ay amreen in degdeg looga soo saaro ciidankii la geeyay magaalada Beledweyne golaha wasiirada xilgaarsiinta Soomaaliya waxa ay amreen in si degdeg ah loo soo celiyo ciidamadii la geeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee muranka badan dhaliyay golaha wasiirada Soomaaliya shir ay isugu yimaadeen ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamadaas loo adeegsanayo dana siyaasadeed taasi oo ay ku qeexeen mid markaas lagu sumcad dilayo ciidanka qaranka golaha wasiirada ayaa isku raacay in ciidamada la geeyay Beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro laguna celiyo xeryahoodii iyadoo la faray wasiirada iyo taliyayaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo isticmaalin laguna sumcad dilin arrimaha siyaasadda ayaa lagu yiri war ay soo saareen golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ciidamadan ayaa la rumaysan yahay inuu madaxweynaha muddo-xiliedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doonayo inuu u adeegsado kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan goor sii horeysay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa waxa uu sheegay in ciidanka la geeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay la dagaalamayaan dagaalyahanada Al-Shabaab oo aanay shaqo ku lahayn wax siyaasada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marnaba ma ahan ciidan ku mashquul ah doorashooyinka waxa ka qoseeya oo kaliya waa sugidda amniga guud oo banaanka ah oo aan ahayn gudaha waxa ay ka ilaalinayaan xitaa in ciidanka xoogga dalka ay qayb ka noqdaan amniga gudaha oo ay soo galaan ayuu yiri Odawa Yuusuf Raage kulanka golaha wasiirada waxa ay tilmaameen in xilligan ciidamadaas la geeyay Beledweyne laga soo celinayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si hadlayay waxa uu hadalkiisa ku sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaad uu ka saaran yahay in meel waliba oo ay ka arkaan in amni darro ay ka jirto aysan ciidina kaga amar qaadan waxa uu iska diiday in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka amar qaataan wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya isagoo sheegay in kaliya waajibaad iyaga saaran ay mar waliba howlgallada ay u sameeyaan maanta waxaa sida caadiga ahayd qabsoomay shirki golaha wasiirada oo uu gudoominayay ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay ajendayaal kala duwan oo ay ugu muhiimsanaa ajendaha la xiriira amniga qodobka koowaad ee quseeya amniga ee golaha wasiiradu maanta ay ka wada hadleen waxa ay ku saabsanayd xaaladda magaalada Beledweyne oo xiisad ay ka taagneyd saacadihii la soo dhaafay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ayaa golaha wasiirada waxa ay la wadaageen in cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed la geeyay magaalada Beledweyne xilli magaaladaas ay ka jirto xiisad siyaasadeed sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu golaha wasiirada warbixin ka siiyay wada hadal uu qadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ugaas Yuusuf ugaas Xasan iyo qaar kamida waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo dhamaantood uu kala hadlay xaaladda magaalada Beledweyne kadib markii la dhageystay warbixinta labada wasiir oo sheegay in geynta ciidamadaas aan lagu wargelin labada wasaaradood isla markaana aanay waxba kala soconin kadibna golaha wasiiradu ay falanqayn iyo dood dheer ka yeesheen kadib ayaa golaha wasiiradu waxa ay isku raaceen dhowr qodob oo loogu talagalay in lagu xalliyo xiisadda ka taagan magaalada Beledweyne qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyay magaalada Beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas'uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada waxaa la faray taliyayaasha ciidamada in ay si degdeg ah ciidamadaas uga soo saaraan magaalada Beledweyne uguna celiyaan xeryahooda golaha wasiirada ayaa sidoo kale inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyayaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcad dilka ah ee ay ugu horeyso in lagu miro arrimaha siyaasadda
isla markaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay u xil saaran yihiin oo ah in ay sugaan amniga guud ee dalka ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta waxaana si gaar ah la isku dul taagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama ku lug lahaanshaha la xiriiri kara in ay faragelin ciidamadu ku lug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intaas kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay guddi wasiiro ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada beledweyne iyaga oo la shaqeynaya dowlad goboleedka hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne guddigaas oo kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo guddoomiye ka ah guddigaas wasiirka wasaaradda amniga cabdulaahi maxamed nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddigaas wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdulqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka wasaaradda ganacsiga mudane khaliif cabdi cumar iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada marwe fawziyo abikar wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula howlgalaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo bulshada magaalada beledweyne gabagabadii waxaa golaha wasiiradu ay baaq u direen waxgaradka iyo shacabka magaalada beledweyne oo loogu baaqay in ay muujiyaan deganaan lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara xasarad iyo isku dhac bulsho oo ka dhacda magaalada beledweyne gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee dalku doorashooyinka uu ka jiro intaas kadib golaha wasiiradu waxaa sidoo kaleeto ay ka wada hadleen xaaladda maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd suuqa bakaaraha oo argagixisadu ay culays weyn ku hayso ganacsatada soomaaliyeed oo ay taleefano kusoo handadayaan isla markaana ay qaarkood hanjabaado toosa u jeediyeen iyaga oo ka doonayo lacaga baad ah golaha wasiirada ayaa cambaareeyay falka argagixisada oo ah kii lagu yaqaanay oo tobannaankii sane ee lasoo dhaafay ay hadba nuuc u isticmaalayeen inay waxyeeleeyaan dadka soomaaliyeed golaha wasiirada ayaa si gaar ah u faray wasiirka amniga in isaga iyo saraakiisha hoos timaada ee qaabilsan amnigu ay la yimaadaan qorshe cad oo looga jawaabayo tacadiyada joogtada ah ee argagixisadu ay ku hayso dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan arrinta ka taagan suuqa bakaaraha oo ay tahay in tallaabo degdeg ah laga qaado argagixisadaas dhanka kalena guddiga xalinta khilaafaadka waxa ay hakiyeen natiijada 3 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee dhawaan la doortay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka ayaa waxa ay shaaciyeen inay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kuraasta tirsigoodu yahay hob 201 hob 209 iyo hob 211 saddexdan kursi ee dacwadda laga keenay ayaa waxa ay ka mid yihiin kuraasta gobolada waqooyi oo maalmo ka hor lagu doortay magaalada muqdisho waxaana dacwadooda soo gudbiyay suldaan diiriye geele cali iyo musharax khayriya maxamed maxamuud war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa lagu sheegay in saddexda kursi laga keenay dacwad isla markaana uu go'aan ka gaari doono guddiga dacwadda laga soo gudbiyay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ee loo igmaday waxa uu ku wargelinayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in la hakiyo ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kuraasta laga bilaabo 27 bisha 2022 inta guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban uu go'aan ka gaarayo dacwadda laga soo gudbiyay kuraastaas ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen sidoo kale waxa uu sheegay guddiga in muddo toddobaad ah markaasi ay ku dhameystiri doonaan baaritaanka cadeymaha dhageysiga dhinacyada ee khuseyso dacwadda iyo waliba go'aan ka gaarista dacwadda taasi oo ka bilaabanaysa waqtiga ay guddiga sida rasmiga ugu dhawaaqeen hakinta kuraastaas waxaan go'aanka ugu gudbin doonaa soo dacwadayaasha iyo dhammaan dhinacyada ay khuseyso muddo 24 saacadood ah oo ka bilaabanaysa marka ay go'aankaasi la gaaro guddiga ayaa waxa ugu dambeyntii uu ku wargeliyay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo waliba guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Somaliland in si dhow ay ula shaqeeyaan xubnaha gacanta ku haya baarista dacwadan si loo helo xog dhameystiran markaasina uguna soo afmeeraan waqtiga loo qabtay dacwada dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa dhigeeda Rwanda waxa ay kala hadashay arrimo muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali oo booqasho rasmi ah ku tagay caasimadda Kigali ee dalka Rwanda ayaa kulan la qaatay dhigiisa arrimaha dibadda ee dalkaasi Vicente Biruta iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Rwanda labada wasiir waxay isla qireen muhiimadda ay leedahay horumarinta iskaashiga iyo waliba
wax wada qabsiga labada dal iyo labada shacab ee saaxiibada ah, waxaana ay isla garteen dardargelinta iskaashiga siyaasadda iyo diblomaasiyadda markaasi oo ay ku jirto dib u soo celinta safaaradaha. Wasiirada ayaa isdhaafsaday aragtiyo ku saabsan sidii ay Soomaaliya iyo Rwanda iskaashi miro dhal ah ugu yeelan lahaayeen dhammaan arrimaha quseeya danaha labada qaran ee amniga iyo weliba la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada, iyada oo ay isla soo dhaweeyeen fursadaha dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgashiga ay leeyihiin labada dal. Ugu dambeyntii, iyada oo markaasi dib loo eegayo xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ah ee ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Rwanda, waxa ay wasiirada arrimaha dibadda ee labada dhinac isku raaceen in si wadajir ah looga wada shaqeeyo iskaashiga fagaarayaasha caalamiga ah iyo xiriirka wadargeesoodka ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaliya waxa ay maalmihii lasoo dhaafayba ay dardargelinaysay kulamada kala duwan oo ay la yeelanayso mas'uuliyiinta iyo weliba wadamada beesha caalamka, kuwaasi oo ay kala hadlaysay iskaashiga ay la yeelan lahaayeen dowladda Soomaaliya. Waxaana wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali dhowaanahanba uu safaro kala duwan ku tagayay dalal ka mid ah qaaradda Yurub. Dhanka kalena, cabsi xoogan xilligan waxaa laga muujinayaa in lagu soo gabagabeeyo waqtigii loo qabtay doorashada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya. Doorashada xubnaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan xubnaha Golaha Wada-tashiga Qaranka shir ugu soo gabagaboobay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxa ay ku jaangooyeen in 25-ka bisha soo aadan ee Febraayo lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya. Ilaa iyo haatan oo maalmihii heshiiskaas uu dhacay laga joogo maalmo aan sidaas u badnayn, waxaa la doortay 73 mudane oo ka tirsan xubnaha Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Wadarta guud ee xubnaha Golaha Shacabka waa 275 xubnood. Ilaa iyo haatan kuraasta hartay waa 202 xubnood, waxaana xeelleerayaasha iyo weliba siyaasiyiinta arrimaha falanqeeya ay tilmaamayaan in ay aad u adag tahay marka la fiiriyo in waqtiga loo qabtay doorashada oo ah 25-ka bisha soo aadan ee Febraayo lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya. Waxa ay ku sababeynayaan xilligan doorashada xubnaha Golaha Shacabka oo meelaha qaarkood cabashooyin laga soo jeedinayo, iyagoona tilmaamay in isqabqabsigaasi uu dib u sii dhigi karo marka la fiiriyo waqtigii rasmiga ah ee loo mudeeyay in doorashada lagu soo gabagabeeyo. Waxaana xubnaha falanqeeyayaasha xilligan ay tilmaamayaan in mar kale laga yaabo in muddooyin kale loo qabto in doorashada lagu jaangooyo, taasina ay dhibaato ku tahay Soomaaliya. Guud ahaan daawadayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. Tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.